Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabtayda qaaliga meel walba adduunka aad ka joogtaan. Fadlan muuqaalka like saara, asxaabtiinana u sii share gareeya. Haddii aad ku cusub tahay YouTube channel-keena Maxamed Wardi Official, nagu soo biir oo subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u aragto muuqaal kasta oo cusub oo aan isla markaaba soo dhigo. aad baad u mahadsan tahay. Saaxiibayaal, maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa filimaanta cusub ee tiyaatarada la saaray lacag ay soo xareeyeen. Filimka cusub ee Baaya ee uu matalayo Jilaaga Manoj Bajpayee, waxaana filimkan agaasimo ka ah Abuur Afsiin Karki. Filimkan ayaa tiyaatarada la saaray bishii dhamaatay ee May 24-keedii. Haddaba saaxiibayaal, filimkan wuxuu tiyaatarada saarnaa 9 maalmood. Filimkan ayaa laga dayrinayaa sababtoo ah si fiican ugama soo muuqan xafiiska sanduuqa ee box office-ka. Haddaba saaxiibayaal, filimkan lacagaha uu soo xareynayo waa lacago aad u hooseeya. Maalinba maalinta ku xigta box office-ka wuxuu ka soo xareynayaa lacago aad u hooseeya. Lacagaha uu hadda soo xareeyay waxay ka badan yihiin 9 karoor guud ahaanba. Maalintii koobaad ee uu filimkan soo baxay, box office-ka wuxuu ka soo xareeyay 1.35 karoor. Maalintii labaadna box office-ka wuxuu ka soo xareeyay 1.75 karoor. Maalintii saddexaadna box office-ka wuxuu ka soo xareeyay 1.85 karoor. Maalintii afraadna box office-ka wuxuu ka soo xareeyay 0.9 karoor. Maalintii shanaadna box office-ka wuxuu ka soo xareeyay 0.85 karoor. Maalintii lixaadna box office-ka wuxuu ka soo xareeyay 0.75 karoor. Maalintii toddobaadna waxa uu box office-ka ka soo xareeyay 0.75 karoor. Haddaba halkii week waxay isku noqonaysaa 8.2 karoor. Maalintii sideedaadna waxa uu box office-ka ka soo xareeyay 0.56 karoor. Maalintii sagaalaadna waxa uu box office-ka ka soo xareeyay 0.25 karoor. Haddaba saaxiibayaal, waxaa halkaa ku cad in filimkan uu dhanka box office-ka aad ugu liito, daawashadiisana aan aad loo xiiseynayn. Haddaynu eegno dhanka kale, filimkan cusub ee la yiraahdo Master iyo Mrs. Mahi, waxaa filimkan agaasimo ka ah Sharan Sharma, waxaana filimka matalaya jilayaasha kala ah Raj Kumar Raw iyo Janvi Kapoor. Haddaba saaxiibayaal, filimkan waxaa tiyaatarada la saaray 31 bishii May ee dhamaatay, waxa uuna tiyaatarada saarnaa 2 maalmood. Haddaba saaxiibayaal, ilaa hadda waxa uu filimkan box office-ka ka soo xareeyay 11.25 karoor. Waxa uu filimkan maalintiisii koobaad ee uu soo baxay waxa uu box office-ka ka soo xareeyay 6.75 karoor. Waxa uu gudaha Hindiya ka soo xareeyay filimkan 4.50 karoor. Haddaba saaxiibayaal, filimaanta sida weyn loo sugayo ee aadka loo xiiseynayo waxaa ka mid ah filimka cusub ee Pushpa 2, waxaana filimkan agaasimo ka ah Sukumaran. Waxaana filimkan jilayaasha kala ah Allu Arjun, Fahad Faasil iyo Rashmika Mandanna. Waxa uuna filimkan soo bixi doonaa oo la daawan doonaa 15 bisha Agoosto 2024, waa sanadkan aynu ku jirno. Jilayaashii qaybtii hore matalayay ayaa qaybtana matali doona oo ka soo muuqan doona. Filimkan cusub ee Pushpa 2 ayaa xamaasad gaar ah ka dhex abuuray dalka Hindiya, waxaana filimkan loo saadaalinayaa inuu box office-ka rikoodh la yaab leh uu ka dhigi doono. Qaybtii koobaad ee filimkan Pushpa waxaa la daawaday 17 bishii Diseembar sanadkii 2021. Waqtiga filimka Pushpa 1 waxa uu ku soo beegmay waqti la sugayay filimkii Mareykanka ahaa ee Spider-Man, kaas oo soo baxayay 17 bishii Diseembar sanadkii 2021. waxaana box office-ka ku wada kulmay labadan filim. Waqtigaana waxaa jiray dhibaatada xanuunka COVID-19. Dowladda Hindiya ayaa meelo badan xanibaado saartay. Filimkan Pushpa 2 waxa uu ku soo bixi doonaa luqadda Telugu. Wararka Hindiya ka soo baxaya waxay sheegayaan in filimkan miisaaniyadda lacageed ee lagu sameeyay ay tahay 500 oo karoor. Filimkan ayaa ka mid ah filmaanta Hindiga kuwa ugu qaalisan, maadaama lacagta lagu qarash gareeyay ay tahay 500 oo karoor.
agaasimaha filimka Sukumaran ayaa go'aansaday inuu bedelo sheekada filimka si ay tii hore uga duwanaato. Haddaba filimkan Pushpa 2 taageerayaasha Allu Arjun ayaa aad u sugaya, waxaana sugi laayihiin inta uu filimkan soo baxayo. balse saaxiibayaal, goobjoog ayaynu u nahay insha Allah hadduu Ilaahayna gaarsiiyo marka uu filimkan soo baxo. lacagaha uu ka soo xareeyo box office-ka waxaad kala socon doontaan channel-keena Maxamed Wardi Official. filimkii cusbaa ee Badhimiyan Jotimiyan ee uu agaasimaha ka yahay Cali Cabbaas Safar. sidaynu ognahay, filimkaas waxaa matalayay jilayaasha kala ah Tiger Shroff, Akshay Kumar, Preet Virat Sukumaran iyo Sonakshi Sinha iyo Ronit Roy. jilayaasha aynu soo tirinay waa jilayaal aflaantooda aad loo taageero. haddaba saaxiibayaal, filimkan intaanu soo bixin waxa uu ahaa filim si weyn loo sugayo oo xiise gooniya ku abuuray shacabka reer Hindiya. sababtoo ah waxaa ka soo wada muuqday filimkan jilayaal aflaantooda aad loo taageero. waxa uuna ahaa filim action ah oo aad loo jeclaystay markii la arkay. haddaba saaxiibayaal, filimkan box office-ka Hindiya waxa uu ka soo xareeyay 65 karoor. haddaba saaxiibayaal, filimkan box office-ka Hindiya waxa uu ka soo xareeyay 65 karoor. guud ahaan adduunka oo dhanna waxa uu ka soo xareeyay 111 karoor. lacagta filimkan lagu sameeyay ee lagu qarash gareeyay waa 300 oo karoor, waana lacag badan. sidaa daraaddeed, filimkan dhanka box office-ka aad ayuu ugu liitay. sida la doonayay muu noqon. waxa la islahaa filimkan markuu soo baxo box office-ka record la yaab leh ayuu ka xidhi doonaa oo lacaga badan ayuu box office-ka ka soo xareyn doonaa. balse filimkan lacagta lagu qarash gareeyay iyo lacagta uu box office-ka ka soo xareeyay isma laha. sidaa daraaddeed, filimkan waxay u noqotay masiibo aad u weyn. haddaba saaxiibayaal, filimkan waxaa lagu dhawaaqay bishii February sanadkii 2022. sawir qaadista ugu muhiimsan ee filimkanu waxay bilaabmatay bishii January sanadkii 2023 waxayna dhamaatay bishii February sanadkan 2024. duubista waxaa lagu qabtay magaalada Mumbai ee dalka Hindiya iyo Scotland iyo London iyo Abu Dhabi iyo Jordan. haddaba saaxiibayaal, ma ka mid ahaydeen dadkii sugayay filimkan ee aadka u xiiseynayay? saaxiibayaal, Telegram-keena ku soo biira. waxaan idin soo dhigayaa linkiga Telegram-ka qaybta hoose muuqaalka ee description-ka. qaybta ka gala. waxaad Telegram-ka kala socon doontaan filimaanta cusub. halkaa ku soo biira insha Allah, asxaabtiinana gaarsiiya. haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe-ta saar, gambaleelkana furo, muuqaalkana like-ta saar, asxaabtaadana u sii share garee. aad baad u mahadsan tahay. asxaabteeda qaaliga, waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waynooyo muuqaalka xiga insha Allah.